kadib akhrintii labaad su'aalaha ugu badnaa nala weydiiyay maalinkii waxay ahaayeen su'aalo la xiriira dhinaca dakhliga kaas ahaan deeqaha laga helay wadamada Sacuudiga, Turkiga iyo Imaaraadka taasoo lacag 33 milyan iyo bar camal dhanay baarlamaanka maalinkii wuxuu codsaday in lagu soo lifaaqo warbixinta qaabkii loo isticmaalay deeqihii laga helay wadamadan iyo faahfaahin dheeraad in laga siiyo lacagaha deeqaha oo 33 milyan aha marka si guud hadda aga hadlo dhinaca dakhliga miisaaniyadda 2017 la ansixiyay waxaa qorshaysnaa ku noqodkii waxaa la qorsheeyay 200 in la helo lacag dhan 260 milyan 129,324 halka dakhliga dhabta soo xarooday sida wasaaradda warbixinta noogu soo gudbisay ay tahay 248 milyan 261 iyo $3 midaasoo markaa u dhigmayso 95% haddana meeshaan waxaa xusid mudan in waxaana muhiim in baarlamaanka ay ogaadaan 248 milyan 261 iyo $3 in ay ku jiraan waa sida ay noo sheegeen wasaaradda inay ku jiraan 33 milyan oo gadaal laga helay 12 bishii May 2019 xisaab xidhkana soo gaaray Turkiga 15 milyan baa ugu qornaa runtii faahfaahinta lifaaqan xisaab xidhkan u dambeeyay way ku caday 29 milyan way ku dhameystireen laakiin Sacuudiga oo kale dhowr 20 baa ku qoran oo ma dhameystirna Imaaraadka kale sidiisaba kuma wada jiraan kolka waxaan lahaa wali xisaabtaasi inay qayrin tahay meesheedina aanay dhaafin baayacad xilbaadana runtii waa jawaab gutaan haddana waxaan nala hortaagantihiin milyan islacag ah ya oo aanan idin sharciyan inaad soo isticmaasheen 2019 aan nala hortaagantihiin 2017 aan cidina waxba ka qabanayno baarlamaankana hadda naga codsanaysa inaan gacanta idin taagno oo idin ansixin gudoomiye baarlamaankan ma qabato ihaano way miisaaniyadda baarlamaanka waxa ku qoran meesha bil walba kadib markii la ansixiyay qoondadan la siiyay lacag 500 ku dhow in bil walba la siiyo oo aan qaadanay 2017 markii idinka la idin yimaado oo guddi idin yimaado ama xildhibaan kale problem qabsado caafimaad oo idin yimaadana baarlamaanka lacag ma taala leedahay shirgudoonkiina lacagtan yaa qaat beela wuxuu nagu soo sharciyeeyay inaan 500 kun oo maamula baarlamaanka uu qaato bil walba lacagtan yaa qaat su'aashaasna in laga jawaabo waa u baahanahay miisaaniyaddan la ansixinayo waxaan qaadan waa qaadateen lagu ansixina sax ma هذا هو عصمت أيه waxaan rabnaa miisaaniyadaas meesha ay ku baxday tan siibatan baarlamaanka meesha ay ku baxday intaana dhamaay wali baarlamaankaas aan ku jiri 10 shilin oo caafimaad ma qaadan wax haba yaraatee aan codeynayno male waana wadaynaa wadana gudoomiye horta markaad u fiirsato sharcigiina loo keenay kanan hadda nuqulkan aan hadda keenay aad bay u kala duwan yihiin qaybaha ugu muhiimsan ee hadda farsamada kala dhamaantii anaga turjunayba kii hore wasaaraddu keentay qofkii turjumaanka ayaa turjumay baa si qaldan u turjumay marka intaan isla fadhiisanay guddigu baan anagu turjunay kow waa midda labaad nuqulo kale oo waxa jiray ka horeeyay wasiirka oo iyana aanu u isticmaalay qoritaanka wasaaradda iyo shaqaalaheeduna way nala joogeen markii aanu qayb ka ahaayeen markaan isla hagaajinay marka maanaan raaci karaynin saddexdii column ee la gelin jiray ahaa kii asalka ahaa kii wixii la bedelay iyo maxaa la yiraahdaa columnkii faalada tiirkii faalada maanaan isticmaali sababta aanan isticmaali karayna waxa weeye basically iyadoo wasaaraddu nala joogta ayaanu wixii oo dhan bedelay dhamaantii marka haddii da warbixin uun hal sidii hadda tii aan hadda ka akhriyay hadal jeedinteydii aan rabtaan waa wax kale weey haddii sa rabtaan wixii aanu bedelay waxaanu ku bedelay iyo faaladii waxaan u maleynayaa arrintaasi inay adagto waayo waxaan waan wada bedelayba dhamaantii يعني شرعي قدقة سوق قري ودقنتا sharciga ha guddiga soo qoray laakiin wasaaraddu way nala joogtay dhamaanteedna way ka warqabtay from A to Z wixii aanu bedelay wixii aan ku kordhinay وافهمني علي جامعة sharciga
hay-adda duulista rayidka ee Soomaaliyeed cutubka koowaad dhisidda qaab dhismeedka maamulka hay-adda duulista rayidka Soomaaliya qodobka koowaad mudane gudoomiye waa eray bixin ka kooban runtii ilaa 5-6 warqadood oo aan rabay inaan ka gudbo waa eray bixin ay ku qoran tahay qof kastana way arki kartaa oo way haysataa